munaasabad aad u ballaaran ayaa waxaa loo qabtay dafcaddii 16aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Shifa University ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday Hotel Mansour waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Shifa, waalidiin, arday, marti sharaf iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Shifa University Professor Cabdisalaan Yaasiin, waxaanu ka sheekayay marxaladii kala duwan waxaanu hambaliyo u diray dafcadda 16aad ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Shifa. maanta waa maalin weyn oo ay xasuusisa maalmo waaweyn oo taariikhdeeda nololeed soo martay. waa 20 Oktoobar oo ay qalin jabinayeen dafcaddii 16aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Shifa. waxay ila mid tahay maalmo waaweyn oo nolosheeda soo martay oo ay ka mid tahay 6 April 1981 markii aan SNM ku dhawaaqay oo ah maalin noloshayda ka mid ah. waxay ila mid tahay maalintii 17 Oktoobar ee loo bixiyey maalinta shuhaadada ee la xasuusanayay 3 maalmood ka hor oo ahayd maalintii intii ugu badnayd SNM halgankii ay dad meelfiga dhintaan. maalintaasoo mujaahid weyn la yidhaaho Maxamed Xaasid Diiriye uu halkaasi ku dhintay oo aan xasuustay ilaalinayeen dhalinyaro idinkeedii ka mid ah in meydkiisa ay faqashku qaadato. cilmiga markaad barato waa inaad wax ku qabataa. waxqabashadu dadku inta badan in lagu shaqo tago oo shaqo meel lagu shaqeeyo oo ama xukuumadda lagu shaqeeyo ama meel ganacsiga lagu shaqeeyo ayuu inta badan u yaqaan. waxaan se anigu ardaydayda maanta xasuusinaya in aanay ahayn in aad qofku shaqo doonato ee ay tahay inaad adigu samaysato shaqo. geesta kalena xubnihii golaha wasiirada oo ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ardaydaasi ku hambaliyeeyay waxbarashada waxaana halkaasi ku booriyeen inay waxbarashadooda halkaasi ka sii wataan. waan idin soo dhaweynaynaa sida ragga igu horeeyay sheegeen maaha shaqo baan u baahanahay maadaama idinka wax laydin baray waqti laydin geliyey inay idinku shaqana abuurtaan dalka iyo dadkana hogaamisaan. waxaan filayaa madax badan baa waxay yidhahaan marka halkan joogtaan waxaad tihiin madaxdii berri. annagu maantaanu qalin jabinaynay waxaa la lahaa waxaad tihiin madaxdii berri. anigu waxaan leeyahay ardayda iyo waalidkii ku soo tabcayba ilaahay baa mahadna waa loo mahad celinaya. ardaydana waxaan leeyahay waan idin hambaleynayaa dalkiiniba waad ku soo barateen. insha allah waa laydinka faa'iidi doonaa. annagu sida mucaaradka idiin dayrin mayno sida ribaashi idin odhan mayno waxba ma idin baranin waxbaa baratee waalidkiina waa idinku tabceen annaguna waa idin garab taaganay. waxaanu leedahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo. baan usoo dhaweynaynaa jaamacadda Shifa University-da aad baan ugu hambaleynaynaa dadaalka badan ee jiliyada inay noo soo saaraan maanta ardayda tiradoodu sideetanka tahay oo aanu qabanay wax badan ka tarayaan baahiyaha iyo caafimaad ee qaranka jira. waxaan markaas ka kacayaa professor shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee maanta qaranka leeyahay caafimaadka uga shaqeeya shaqaalaha hoosaadku inay yihiin tacabkaaga iyo wax soo saarka jaamacadda Shifa ay soo saarto. waayo waxaan gaadhay hadafyadii noloshayda wax ka mid ah. waayo in badan baan ku hamiyayay inaan xidho koofiyadan ama aan noqdo arday ka qalin jabiyay jaamacad. maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inuu igu samay inaan heerkan aan soo gaadho. tabci dheeraa ee in badan maxaan kula aanu soo wadnay midhaheedii ayaan maanta u dabaaldegaynaa. jaamacadda Shifa ee sharafta leh ay ka qalin jabiyeen ayaan u mahadnaqaynaa. dadka ka dambeeyana ugu baaqaynaa. gabagabadiina waxaasi halkaasi biladay iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Shifa kulliyadda caafimaadka iyo weliba kulliyadda dhinaca shaybaadhka. Cumar Cali, Bulsha TV, Hargeysa.